qaadataa astaanta ka mid ah marka inaad ahludiinta ee astaanteed inaad qaadataa wax xun maaha waa wax haybo iyo ziyaada ku tilmaamaysa masalada ku saabsan wax diyaarinta hal mas'alo ma idin sheegay dee wax waa akademika waa barateen sida wax loo diyaariyo iyo sida wax loo baxfiyo iyo adab albaxth waa la idin dhigay laakiin midun baan idin sheegayaa istikhfaaf cuquuli الnaas weligaa ayay kugu dhicin bini aadamku inaanu waxba garanayn hamoodin taa macnaheedu waa maxay soo diyaar garow intaad rabto inaad bini aadam wax u sheegto cuquushooda ixtiraam wax waliba dadka way ku jiraan qaar kaa aqoon badan baa ku jira qaar kaa waayeelsan baa ku jira qaar kaa tajribo badan baa ku jira marka meeshuun baan buuxiyey hays odhanin dadku waxay ka wahsadaan rag badan oo cilmi badan baa jira laakiin waxay ka wahsadaan in waqti ku bixiyo waxaa la arkaa daris waqti aanu jeedinay sanawaad inaanu qoraynay wax akhriskaagu ha bato haddaad rabto inaad wax sheegto waxaa ka horeeya in adigu aad dhaansantay wax akhriskaagu inuu bato wax akhriskaagu ha batee maskaxdaadu intay ku haynaysaa xaggana waad ka akhriyaysaa xaggana way ka sii daynaysaa idan dabarkaaguna ha bato qalinkaaga iyo waraaqdaada iyo buuggaaga iyo kombiyuutarkaagu ha kula socdaan buug kastoo aad akhrido waxbaad ka faa'iida idaacaddaa markaad dhegaysataa baad wax ka faa'iidaysa laakiin haddaad waxa qorto hadhow wuu ku anfacaya waad isticmaali karaysa haddaad se tidhaahdo waan fahmay haddaad iminka kitaab soo fadhiisato waad wada dhegaysato waad fahmaysaa laakiin bil kadib haddii lagu weydiiyo waxba ka garan maysid haddaad se idmaanu nadar samayso haddaad dib u akhrido oo eegtid oo baadhid oo dhigtid oo wuu kugu degayaa idan caqli badnidaada iyo faham badnidaada ha tala saaranin ee wax akhriskaaguna ha bato dadkana ha fudaydsanin oo dadkaad rabto inaad wax u sheegto waktiga ha ka luminina waxaad isku daydaa inaad wax ku kordhin karayso inaad wax ku kordhin karaysaa macnaheedu waxay tahay aqsa maa ladayka min juhdin bixi marka hore waxaad awooddo ee baxfiya ee baadhisa ee madaanta taasi waxay ku baraysaa marka dambena inaad garato wax kastoo aad u baahan tahay madaanta culammadii hore xufaad bay ahaan jirtay culammadii dambe waxay idhaahdaan madaantay yaqaaneen haddaad garanayso mas'aladu markay timaado halka aad ka baadhayso wallaahi fatxiga waa ku qorayd oo fii baabi kada buu kaga warramay minhaajkuna baabkaasuu kaga warramay kaa waa fududay markiiba waad soo helaysaa qofka madaanta yaqaanaa waa shubhu xaafid waxaad garanaysaa mas'alo kastoo kuu timaada halkaad ku raajici walidaalika bay culammadu waxay dhahaan markaad wax akhrinayso laba midun baa la sameeyaa kitaab markaad akhrinayso ama jaldigiisaa lagu tajriidiyaa kitaabka jaldigiisa waxaa lagu qoraa masaa'ilkii kitaabka o dhan uma wada baahanid kitaabkaad kastoo aad akhridaa waxaa laga yaabaa macluumaad badan oo aad garanaysa inay ku jiraan laakiin waxaa kaaga soo horbaxaya wax ama kugu cusub ama taxqiiqa ama kuu faa'iideeyey waxaasi waxaad u baahan tahay kitaabka jaldigiisa lagu qoraa bejka intaas mawduuca intaasuu sheekhu kaga warramaya bejka intaa mawduuca intaasuu kaga warramaya marka mar kastoo aad kitaabkaa jaldigiisa akhrido waxaad garanaysaa masaa'ilka adiga ku khuseeyo dhame waxay tahay amase kitaabulfawaa'id agtaada ha yaallo sido kitaabulfawaa'idkaaga sido mas'alo kugu cusub ama fifaada cusub markaad heshaba meel gaaro aad ku qorto ay ka gasha ha jirto idan general knowledge-ka waxay idhahdaan almacluumaat alcaama baa badanaysaa wax sheegu wuxuu ka fiican yahay qofba qofku macluumaadkiisa caamkii ka badan yahay marka macluumaadkaaga caamkii bato fi kulli almawaadiic tasawur baad ka helaysaa erayga quraan dilay markaa waxa weeyaan istikhfaaf cuquuli الnaas si idinku dhicin markaad rabtaan inaad wax sheegtaan 40 haddaad dhigaysa ka soo diyaar garow wallahu aclam